xasan cali khayre sanadkii 1968 ayuu ku dhashay tuulada jacar oo ilaa 50 kiiloomitir u jirta degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaana dugsiyada hoose dhexe iyo saraba uu ku dhameystay magaalada muqdisho markii dagaalka sokeeye uu ka qarxay Soomaaliya ayaa sanadkii 1991 waxa uu qaxoonti ku noqday dalka Norway sanadkii 1994 ayuu isqoray jaamacadda University of Oslo ee dalka Norway isagoo ka qalin jabiyay sanadkii 1998 waxaana uu bartay cilmiga siyaasadda ee political science sanadkii 2001 ayuu shahaadada labaad ee masterka uu ka qaatay jaamacadda Heriot-Watt ee dalka Ingiriiska khayre waxa uu haystaa jinsiyadaha Soomaaliya iyo Norway sanadkii 2002 ayuu ku laabtay dalka Norway waxaana uu ka shaqeeyay hay'adda dalkaasi u qaabilsan qaxoonta ee magaceeda loo soo gaabiyay NRC isagoo ka mid noqday saraakiisheeda sare xarunta dhexe hay'addu ay ku leedahay magaalada Oslo sanadkii 2006 ayaa waxa uu noqday madaxa hay'addaasi u qaabilsan Geeska Afrika waxaana xilkaasi uu hayay muddo 9 sano sanadkii 2012 ayaa xasan cali khayre waxa uu noqday madaxa shirkadda Ingiriiska ee la yiraahdo Soma Oil and Gas u qaabilsan qaaradda Afrika warbixin ay soo saareen guddigii cunaqabataynta ee qaramada midoobay ee wadamada Soomaaliya iyo Eritrea ayaa waxay ku xiriirisay inuu cilaaqaad la lahaa al-shabaab eedaasi oo uu beeniyay 23 bishii February ee sanadkii 2017 ayaa madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu magacaabay jagada ra'iisul wasaarenimo kowdii bishii March ee sanadkaasi ayaa baarlamaanku cod aqlabiyad ay ku meel mariyeen maanta bishu ay tahay 25 July ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa codkii kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadii uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isagoo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud Nice. Hey. Let me see it. I tell you, it's wonderful. Come, what's this? You want to swallow this thing? I've told you don't cut gig by or akbu. You want to kill yourself? Come on, reduce it. No, Papa, I can swallow it. You are mad. Come on, remove it. Nonsense. Hey. But it's not free. Pray, no problem. What do you use for the soup? Huh? This is a soup or puss. How? What kind of soup is this? It is soup now. Huh? I took it with got a time, sugar, everything. Very sweet. Sugar. Ha! Papa. Sugar. Papa, it's very sweet, oh. Okay, there's nothing wrong with it, eh? No, eat. Finish it. Papa, you're not eating. No, finish. Hey, look. Finish it. You don't like to eat meat. I'm tired. Eh? I'm tired. It was work. If you didn't finish this food, I kill you here. Papa, it's better you give me because it's something as finishing this food. If you don't give me now, by the time I finish this food, I will still die. Better for me because you have no use to me. Do you know the pains it takes me to provide the money for the ingredients of this soup that you've just wasted? Finish it here. Papa, What is it? I vomit. Sit down there, vomit inside this one. Put it there. Papa. Sit down. No, I want to drink. Don't. Come on, remove here. Papa, let me go to toilet. What's wrong now? Let me go to toilet. I'm gonna...
If you finish that thing, come back to come and finish this food though. You must finish it.